gudoomiyaha maamulka degmada Dolobay oo ay ku wehelinayeen qaar kamida mas'uuliyiinta maamulka degmada Dolobay ayaa waxa uu xadhiga ka jaray baraagihii loogu talagalay barnaamijka biyururinta ee sanadan 2007 laga hirgelinayay degmada Dolobay. gudoomiyaha degmada Dolobay ayaa kadib marka uu xadhiga ka jaray baraagahani oo gaarayay 5 barkadood oo laga hirgeliyay goobaha dadka biyo ka jirin ayaa waxa uu tilmaamay in degmada Dolobay ay ka mir dhalinayso qorshayaasha xukuumadda ay u qaadatay dhinaca biyaha si bulshada looga baahi tiro dhinaca biyaha. run ahaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya iyo xukuumadda labaduba waxay qorshaha koobaad iyo labaad iyo saddexaad loo qaatay dhinaca biyaha. biyahaas oo ah biyaha roobka oo la ururiyo, biyaha socda oo laga faa'iideysto iyo ku dhulka hoostiisa la soo saaro. run ahaan degmada Dolobay 5 barkadood ayaa laga fulinayay 2007 shantii baraagood maanta xarga laga jaraya, shantii way dhameystiran yihiin. run ahaan kormeerkii waan dhamaantood ku soo marnay, xargana maanta hadda laga wada jaraya. madaxa xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee degmada Dolobay mudane Cabdi Caydiid ayaa waxa uu sheegay in barkadiiba ay ku baxday miisaaniyad gaaraysa 500 oo kun oo bir, taasi oo dib loo geliyay shacabka dhinaca qodaalka iyo dhismaha barkadaha. miisaaniyada ku baxday barkadan waa miisaaniyadan 500 oo kun oo bir oo lacag marka si loogu talagalay oo dhamaatay cabirkeeda darnaan waxa loogu talagalay qiyaas ahaan 600 mitir kubiik, laakiin barkadan waxa weeyaan 650 mitir kubiik oo biyaha qaasa ilaa 3700 foosto cadadna biyo qabanaysa xasa 2 milyan iyo 500 kun oo bir oo lacag ku baxsan guud ahaan shanta barkadood degmada Dolobay laga fuliyay. goobahani laga hirgeliyay baraagaha loogu talagalay barnaamijka biyururinta ayaa bulshada ku nool waxa ay bogaadiyeen dareen farxadeedna ku soo dhaweeyeen barkadahani loogu qoday dhulkani oo horey u ahaa dhul oomane ah. waqti xaadirkana ay sheegeen inay ka faa'iideysanayaan baraagahani laga qoday ilaashanayaan. baan u celinaynaa dhibaatadan haysatay wax fara badan ay ahayd, haddii ay tahay xagga waxbarashada, haddii ay tahay xagga caafimaadka, haddii ay tahay xagga biyaha, waxa soo dhan dhibaato badan ayaa naga haysatay. hadda waxaan mahad u celinaynaa dawladda sidii aan uga baxnay dhibaatada naga haysatay dhanka biyaha. aad baan mahad ugu celinaynaa.